daawadayaasha qiimaha iyo qaayaalaho waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkan aan ka soo diyaarinay socdaalkii uu madaxweynaha jamhuuriyadda la magac baxday Somaliland Daahir Riyaale Kaahin uu ku soo gaaray xarunta dalka Ingiriiska ee magaalada London. haddaba aniga oo ah Cabdimaalik Cawil Isxaaq ayaa idinku wareejinaya bahda Som TV UK oo barnaamijkan soo diyaarisay. galab 17 bishan Maarso aqalka baarlamaanka ee dalkan Ingiriiska hortiisa ka dhacay banaanbax ay isugu yimaadeen Soomaali fara badan oo ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Soomaaliya ee iminka la baxay Somaliland doonayaan inay goonidooda isu taagaan. waxa banaanbaxani uu ahaa mid ay ka soo qayb galeen dad fara badan oo reer Somaliland oo ka kala socday magaalooyin fara badan oo Ingiriiska iyo Yuruba. banaanbaxani wuxuu ahaa mid la beegsaday من وفد بلارن oo horkacaya madaxweynaha Somaliland Daahir Riyaale Kaahin ay booqasho door bari ah ku yimaadeen arigan Ingiriiska. dad badan oo dhalinyaro u badnaa oo halkaas isugu soo baxay ayaa hortaagnaa aqalka baarlamaanka Ingiriiska waxaana ay dadkaasi siteen boorar ay ku qornaayeen halkudhigyo kala gedisan oo ka turjumaya sida ay uga go'an tahay reer Somaliland gooni isu taagooda. dhinaca kale sida la wada ogsoon yahay sababta wafdigan u yimaadeen Ingiriiska ayaa ah mid aqoonsi caalami loogu raadinayo Somaliland. Ingiriiskuna yahay furihii arrinkan ku suurtagali lahaa sida ku cad koob noqolka khudbadii Riyaale ka akhriyay aqalka House of Commons ee soo gaaray Som TV ayaa oo Riyaale farta ku fiiqay mar haddii 13 sano ee la soo dhaafay ay wadamo badan sida East Timor, Eritrea, Serbia, Georgia ay heleen aqoonsi caalami oo gooni isu taag ay ku adag tahay inuu qaato sababta ay Somaliland aqoonsi sida la mid ah loogu diidan yahay. wuxuu khudbadiisa ku sheegay in Somaliland ay xagga tiro ahaan ka dad badan tahay 63 dawladood oo xor ah sida Luxembourg, Jamhuuriyadda Congo iyo Jamaica waa sida hadalka u dhigay. wuxuu kaloo sheegay in Somaliland ay ka baaxad weyn tahay xagga dhulka 85 dawladood oo ay ku jirto Belgium, Jordan iyo El Salvador. haddii aan u soo noqono dadweynihii badnaa ee xamaasadeysnaa ee halkaa iskugu yimid waxay ahaayeen kuwo ay wajiyadooda ka muuqatay farxad iyo reyn waxayna ku dhawaaqayeen halkudhigyo iyo heeso ay ka muuqato taageero iyo eedeediilo gelin. waxaa intii aanu meesha joognay inoo suurto gashay inaan qaar ka mid ah dadkii soo banaan baxay weydiino 2 su'aal oo qura. su'aasha koowaad oo ahayd ma ii sheegi kartaa sababta aad maanta halka u timid, iyo su'aasha kale oo xigta oo iyana ahayd maadaama Soomaalidu isku af dhaqan diin iyo midaba tahay maxay tahay sababta kale fikrta in aydan Soomaaliya ka go'daan oo aad goonidiina isu taagtaan. ayadoo aanu maanta arkayno dalalkii isku afka dhaqanka iyo midabka ahaa ee intii muddo ahaaba kala go'sanaa oo maanta isku darsamaya ama midoobay sida Yamanta, Jarmalka. qaar kalena ay ka shaqeynayaan sida ay isugu darsami lahaayeen waxayna ay ugu jawaabeen sida tan. magacayga waxa la yiraahdaa Sultan Saciid waxaan ka yimid magaalada Birmingham hore waxaan deganaa jiray waddanka Denmark. waxa maanta aan halkan isugu nimi ama dadka reer Soomaaliland oo isugu yimaadeen si ay u sabooraan ama u taageeraan in Soomaaliland la soo noqoto xornimadeedii 1960kii ay ka heshay dawladda Ingiriiska.
maxaad maanta meeshan u joogtaa walaal waxaan u joogaa in waxaan u soo banaan baxay in Soomaaliland la aqoonsado oo maanta meeshan yaa jooga yaa imanaya waxa imanaya cidii invitation u soo dirtay dawladda Ingiriiska cid international dad badan ba iskugu imanaya meesha si ay u arkaan mowqifka iyo ahmiyadda dadka Soomaaliland ee ku nool jahliyadaha dibadaha si loo arko in ay ma aragtay maanta meeshan u joogtaa maanta waxa u jooga meesha waa cashaan wax rabayna dadka support iyo kan waxaan organize شمالنتي وحي ما تحي مالنتي كان بريزيدنت كيميليا marka xalka wax dartaan markii faqashta suuq ana soo tagnay sida hargeysa ama magaalooyinka dib u furiyeen xalka dartaan diyaaradii u xusay wata macdamaheedni imika wadanka naga soo baxay waddankeena sidoo maanta noqday waa laga raastay faqashtii xoolaheena waa kuwaas madaxweynayaashii soo maray Cabdiraxmaan Axmed maclintiiba yadab raaciga Allah naxariista labadaba Daahir Riyaale oo imika madaxweynaha imika jooga waka maabkeeni everywhere tahay meel laga marwi karaa ma jirto meel hore kara kulna baa safar hada halkan ku yar xalka wax dartaan markii faqashta suuq ana soo tagnay sida hargeysa ama magaalooyinka dib u furiyeen markii hore magacayga waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Cabdi Cilmi Duxood anigoo in yar badan aduu ku yar ogoga waxa karam politics ka Soomaaliland imika since uu Daahir Riyaale ka himid madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu Daahir express gareeyay inay great concern tahay recognition ka Soomaaliland in la keeno jaamac nuux suldaan baan ku magac dheerahay waxaan ahay guddiga qabanqaabada soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maanta sida aragtaan halka waxaynu nimi in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Daahir Riyaale ka iyo wafdida uu hogaaminayo lagu taageero waxa uu magaranaysaa u soo baxay iyo magaranaysaa madaxbannaanida Soomaaliland marka halka Soomaaliland darabanahay waxa ka dadkan isugu yimaadeen inay keeskooda u bandhigaan adduunka gaar ahaan waddankan Ingiriiska ay casuumad ka heleen wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha Daahir Riyaale Kaahin inay keeskooda u bandhigaan maanta oo ay arki doonaan xubno ka mid ah baarlamaanka dadka halka isugu yimidna waxay u soo baxeen inay taageeraan oo ay muujiyaan taageeradooda oo ay tusaan adduunka iyo dawladda Ingiriiskaba inay taageersan yihiin go'aansitaaga ama go'aansashada qadiyadda Soomaaliland. Today we will be seen, we will be recognized. All of the youngsters who are today in this country, we are working hard and very hard to go back to Somaliland. I'm talking about Hargeisa, Burco, all over Somaliland. When we are educated, when we are well brought up, we will go back to our city and our homeland and we will live there. And when we